2005 laga soo bilaabo ilaa 2010 Tirakob UN Habitat ay samaysay waxay cadaysay in 140% dhismayaasha magaalada ay siyaadeen dabcan 2010 waxa ka dambeysay 2 sano oo kale waxaan is leenahay waa sanadihii kororka magaalada ugu badnaa aad iyo aad waxa saameyn ugu leh amniga magaalada iyo hawada iyo climate-ka ay haysato iyo dhexdhexaadka ay kaga taal Puntland ayaa dad badan oo investors ama diaspora ha noqdeen ama ganacsato Puntland ha noqdeen waxay ka dhigteen saldhig deegaan marka waxaan oran karnaa aad iyo aad bay u siyaaday dhinaca bilicda magaalada iyo jidadka aad wax looga qabtay dadweynuhuna heelan buu yahay dawladuna gacan badan bay runtii gelisay wadooyin badan oo hor lehna waa la sameeyay kuwii horena waa la dayactiray jardinooyin badan baa loo sameeyay magaalada waxa aad ugu badan oo haddana socda dhismayaasha hoteelada waaweyn iyo baararka laga cunteeyo magaaladu waxay leedahay koronto joogto ah 24 saacba biyo joogto ah iyo telefono ama telecommunication casri ah marka waxaan oran karnaa bil kasta magaalada waxa ku soo biira in ka badan 100 guri ama 100 dhismo cusub population-ka magaalada waxa lagu qiyaasaa 140,000 oo qof inay ku nool yihiin degmada Garowe ama magaalada dhexdeeda